howlaha arlada haddi lagugu aamino ummada uu shaqeeyo adeega laga dhigo awoodiyo dulqaad ee xala'an ayaa laga rabaa. hob iyo dhagaxdhig kama daasho dekadeedana lama daahfuro. galmudug goob loo shaqo tagaan loo shaqayn. ku soo dhowaada barnaamijaan uga hadlayno heshiis dhowaan dhex maray galmudug iyo shirkado dhowr ah. maxay kala socdaan shacabka reer galmudug heshiiska dhex maray maamulka galmudug iyo shirkado la sheegay inay ka diiwaan gashan yihiin dalka ingiriiska? heshiiskan oo ku saabsan dhismaha dekadda dhagaxdhigga u saaxiibka ee hobyo ayaa waxaa wada saxiixday shirkado lagu sheegay 3 balse intaa ka badan. macluumaadka shirkadahaas ayaad barnaamijka ku galmudug heshiiskan ku matalayay isla markaana u saxiixay wasiirka dekadaha iyo kalluumaysiga Saabir Nuur Shuuriye. shirka ayaa waxaa lagu qabtay dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada London. ugu horeyn aan isla daawano wasiir Saabir oo ka hadlaya isla markaana bogaadinaya shirkan. waxaa maanta sharaf ii ah meeshaan inaan ku galno heshiis aan ku kala saxiixano shirkadda Oriental Terminal Limited oo ah shirkad ay ku bahoobeen 3 shirkadood oo 2 shirkadood ajaanib oo Ingiriis iyo Turki iyo Soomaali kala ah oo aan maanta halkaan ugu saxiixnay heshiis taariikhi ah oo lagu dhisi doono haddii Ilaahay idmo dekadda Hobyo oo run ahaantii ay u tahay guul ummadda reer galmudug ay sugayeen runtii dee in muddo ah. waxaan aad maanta ugu faraxsanahay ballanqaadkii aan ummadda reer galmudug u ballan qaadnay in haddaan nahay dowladda galmudug inay maanta runtii ay dhabowday. heshiiskani wuxuu dhaqan galayaa maantay haddii Ilaahay idmo. bishaan dhammaadkeeda laga bilaabo waxaa imaan doona tiimkii ugu horeeyey oo technical teamka ahaa oo meesha dekadda laga dhisi doono iyo qaabka loo dhisi doono iyo technicalitygeeda iyo waxeeda oo dhan soo afjari doona staadigii ugu muhiimsanaa. waxaan kaloo rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo bilowga sanadka soo socda haddii Ilaahay idmo in ay la sii doono shirkadani ay sii doonto shirkaddii dhismaha dhis lahayd dekadda. waxaan rajaynaynaa in run ahaantii heshiiskan taariikhiga ahi uu dhaboobi doono. sidaan la soconno Hobyo heshiisyo badan ay hore u soo gashay. waxaanse ku rajo weynaha inay midkaani ka gedisan yahay. sababta ugu gedisan yahana waxa ay tahay number 1 waa shirkado private ah. shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay nin lagu sheegay inuu u dhashay dalka Turkiga isla markaana ah shakhsigii ka dambeeyay ama fikradda lahaa in shirkan la iskugu yimaado kana mid ah dadka maalgelinaya. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay 2 nin oo ayaguna u dhashay dalka Ingiriiska. waxaa dhanka kaleeto shirka ka soo qayb galay isla markaana ku matalayay 2 shirkadood oo kala ah Baraarug iyo Daldis Faisal oo ah Soomaaliyeed. waxaan aad ugu faraxsanahay heshiiskan taariikhiga meesha ka dhacay oo rabo in dekadda Hobyo lagu dhiso. si gaar ahaan waxaan ugu mahadcelinayaa maamulka galmudug oo madaxweyne Qorqor oo madaxweynaha ka yahay iyo wasiir Saabir oo runtii juhdi iyo waqti badan geliyay in uu dekadaasi ay meesha ka dhisanto. waxaan kaloo oo soo u mahadcelinayaa international partnerska kale oo ayaguna meesha la fadhiya oo macnaha ku dhiiraday inay maalgashtaan dekadda Hobyo. marka waxaan aniga soo wakiishay qaybta aan ka leeyahay baadka dekadda 2 shirkadood. shirkadda koowaad waxaa la yiraahdaa Baraarug Corporations oo iyadoo hadda runtii shaqo muuqata ay ka haysa Hobyo deegaanka iyo oo soo shirkad kale oo la yiraahdo Daldis. waxaad wada aragteen wasiirkii oo ka hadlaya iyo Faisal oo asna sheegaya inuu matalo 2daas shirkadood. aan ku bilaabo shirkadda ugu horeysa ee la yiraahdo Oriental Terminals. waa idin calaameeyay sidaad aragtaanba shirkadda macluumaadkeeda. falaarta ugu koreysa waxay tilmaamaysaa company registration numberka ama company numberka
fallaarta kaleete hoos u jeedana waxay tilmaamaysaa xilligii shirkaddan la diiwaan geliyey. fallaarta ugu yar fallaarahana waxay tilmaamaysaa halka ay ka diiwaan gashan tahay ama adreeska ay ku tahay shirkaddan. halka ugu muhiimsana waxay tahay waqtiga shirkadda la aasaasay. sida idiin muuqata shirkaddan waxaa la aasaasay 8 Oktoobar 2020 waa maalmo ka hor xilliga shirka la qabanayo. aan u gudubno shirkadda kale. shirkadda labaad magaceedu ayadana waxaa la yidhaha Coram Limited. shirkaddan sida idiin muuqata fallaaraha mar labaad idiin sharaxi maayo. fallaarta koowaad waa fallaarta numberka ku aadan iyo magaca kambaniga. fallaarta aan anigu ujeedkeeda ka leeyahayna waa fallaartan ugu hooseysa. fallaartan hoose shirkaddan waxay sheegaysaa in la aasaasay 17 Abriil 2003. waa shirkadda ugu faca weyn shirkadaha aan hadda soo wadno. shirkaddan waxay ka shaqaysaa ama qaabilsan tahay nadaafadda dabaqyada iyo tirtirista daaqadaha ayay qaabilsan tahay. ma aha shirkad ku shuqul leh deked iyo arrimaheed. waxaan u gudbaynaa shirkadda saddexaad ee iyaduna aan shirkadaha ka qayb galaya. waxaa la yidhaahdaa shirkaddanna Hobyo Investment. ayadana waxaa la aasaasay 6 November 2 maalin kadib xilligii shirku dhacay. halkaas ayadana waa idiin muuqataa. shirkadda afraad haddaan u gudubno ayadana waxaa la yidhaha Indian Ocean. ayadana waxaa la aasaasay 17 Oktoobar 2020 waa maalmo ka hor inta uusan shirku dhicin. intaasi waa shirkadaha aan macluumaadkooda helnay hadda, balse waxaa jira 2 shirkadood oo uu Faysal noo sheego la yiraahdo Baraarug iyo Daldis. kuwaas macluumaadkooda nooma suurtagelin inaan helno. waxay ila tahay wax walba hadda way noo cad yihiin. shirkadahan in loo aasaasay mashruucan dartiis lana rabo in lagu lugooyo dadka reer Galmudug iyo dekada Hobyo. waxaan leenahay dadka reer Galmudug ha ka foojignoodaan dabinada noocan oo kaleeta iyo dadka danaha gaarka leh. malihi wasiir Saabir ayaa dan gaara kale, balse waxaa laga yaabaa wasiirka in loo hoosgeliyey. waxaan leeyahay asaguna dib ha ugu noqdo arrintan, hana ka foojignaado. ay sooran idikuma arkaysi ehela sheego. ay sooran idikuma arkaysi ina adeeso. ay sooran idikuma arkaysi ehela sheego. ay sooran idikuma arkaysi ina adeeso. nin xilqaaday eed qadiyey